kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka channelka Dana Media qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan nabadiidka Al-Shabaab ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo gobolka Baay ku qabtay horjoogta nabadiidka Al-Shabaab salligiya ay nabadiidku ku lahaayeen degmada Waajib oo ay burburiyeen ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed horjoogihii sameynta jaakadaha argagixisada loo adeegsaday iyo horjoogayaal kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay kumaandoos ku dileen Jubbada Dhexe ciidanka xooga dalka oo hawlgalka fuliyay deegaano hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose dawladda Uganda oo sheegtay in ciidamo hor leh u soo dirayso dalkeena Soomaaliya fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka Dana Media subscribe saar like iyo share la wadaag asxaabtaada aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya daawadayaal General Maxamed Cadow Cali Sanka taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo la hadlayay ciidamo ka tirsan xooga dalka Soomaaliyeed oo maanta uu tababar ugu soo xirada dugsiga tababarka Harqaboobe ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalkeena Soomaaliya taliyaha ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ay qaadi doonaan hawlgallo qorsheysan kuwaas oo la doonayo in kooxda argagixisada nabadiidka naflacaariga maleeshiyaadka Al-Shabaab looga saari doono degmada Ceelbuur muddo badan ay gacanta ku hayeen isla markaana halkaasi ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka ee waxba galabsan kooxda nabadiidka Al-Shabaab oo caado u ah inay dhibaateyso dadka shacabka ayaa deegaanadaasi waxay ka geystaan falal isugu jira koofsi dhac iyo waliba handada kale oo ay u geysanayaan dadka shacabka ah sidoo kale taliyaha ayaa tilmaamay inay diyaariyeen ciidankii nabadiidka argagixisada Al-Shabaab ka saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Galgaduud iyo guud ahaan deegaanada maamulka Galmudug isagoo sheegay in dhawaan ciidanka loo dhameystiri doono xuquuqdooda isla markaana ay diyaar u yihiin in hawlgalkooda ugu horeeya ay ku qaadaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa deegaanadan waxay ka dhibaateeyaan dadka shacabka ah balse hadalkan saaka soo yeeray ayaa Al-Shabaab ku dhabar jab weyn isla markaana ku abuubay argagax daran Al-Shabaab ayaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxay u tahay xarun isla markaana ay ku sugan yihiin horjoogayaal isugu jira Soomaali iyo ajaanib isla markaana waxa laga soo abaabulaa falalka lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada maamulka Galmudug ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa hawlgal lagu baacsanayo haraadiga nabadiidka Al-Shabaab ka fuliyay deegaano iyo tuulooyin hoostaga gobolka Baay saraakiisha hogaaminaysa hawlgalka ayaa waxa ay sheegeen in hawlgalku ka dhacay deegaanada kala ah Dhuun Adeego Tooswiina Kurteele iyo deegaano kale hoostaga deegaanka Goofgaduud Buurey ee gobolka Baay saraakiisha hogaaminaysa hawlgalka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in hawlgalka lagu soo qabtay horjoogo ay kamid yihiin horjoogihii sirdoonka Al-Shabaab ee gobolka Baay iyo horjoogihii maaliyadda ee Al-Shabaab ee isla gobolka Baay saraakiisha ayaa sheegay in magacyada horjoogayaasha ay hawlgalka lagu soo qabtay ay la wadaagi doonaan shacabka Soomaaliyeed hawlgalkan ayaa qayb ka ah hawlgal guud oo nabadiidka Al-Shabaab looga saarayo deegaanada farakutiriska ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin dalkeena Soomaaliya ciidanka xooga dalka ayaa burburiyay salligiya nabadiidka ay ku lahaayeen deegaano hoos yimaada degmada Waajeeda hawlgalkan ay qaadeen ciidanka ururka 260aad ee guutada 9aad qaybta 6aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa ka fuliyeen deegaanada kala ah Dhuuray Kurta Arabsale oo ka hoos yimaada degmada Waajida gobolka Bakool halkaasi oo ciidanka ay ku burburiyeen salligiya dhowra oo kooxda nabadiidka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi geesiyaasha ciidanka xooga dalka oo hayay warbixino ku saabsan deegaanada ay ku dhumaalisanayaan maleeshiyaadka nabadiidka Al-Shabaab ayaa kadib markii shacabka ay ciidamada u soo gudbiyeen dhibaatooyin badan oo nabadiidku ay ku hayeen shacabka tuulooyinkaasi ku nool saraakiisha hogaaminaysa hawlgalka ayaa waxa ay ka warbixiyeen hawlgalka qorsheysan oo ay ka fuliyeen deegaanada hoos yimaada degmada Waajida gobolka Bakool lagu baacsanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ciidanka xooga dalka gaar ahaan qaybta 6aad ayaa muddooyinkii dambe xoojinayay hawlgallada ka dhanka nabadiidka Al-Shabaab horjoogihii sameynta jaakadaha isqarxinta loo adeegsado iyo waliba horjoogayaal kale oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ay ciidanka sida gaarka u tababaran kumaandooska Danab waxay ku dileen Jubbada Dhexe kadib hawlgal qorsheysan oo ciidanka kumaandooska xooga dalka Soomaaliyeed ee Danab ay ka sameeyeen gobolka Jubbada Dhexe ay ku qaarijiyeen horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab hawlgalkan oo mid qorsheysan ay ciidanka kumaandooska xooga dalka ku qaarijiyeen horjoogayaashii argagixisada Al-Shabaab u qaabilsanaa sameynta jaakadaha iyo suumanka isqarxinta oo u adeegsado kooxda argagixisada Al-Shabaab kumaandooska sida gaarka u tababaran ee Danab ayaa degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ku dilay horjooga Muxsin Caliyow oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo horjooga Maxamed Sheekh kuwaas oo u qaabilsanaa farsameynta jaakadaha iyo suumanka ay Al-Shabaab u adeegsadaan isqarxinta iyo laba horjoogo oo kale
sida ay idaacadda ciidamada u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab oo howlgalka hogaaminayay. saraakiisha danab ayaa intaasi ku daray duqeynta iyo howlgalka qorsheysan ee laga fuliyay jilib ujeedku uu yahay ka hortagga qaraxyada ay ummadda Soomaaliyeed ku dhibaateynayaan al-shabaab. duqeyntan ka dhacday degmada jilib ayaa waxaa iska kaashaday ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba howlgalka Mareykanka ee Africom. duqeyntaasi oo lagu burburiyay warshadii samaynta qaraxyada ee al-shabaab ku lahaayeen halkaasi. howlgalka dhana maleeshiyaadka al-shabaab ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalka dhana argagixisada al-shabaab ka sameeyay deegaano hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. inta uu socday howlgalka ayaa waxaa lagu khaarijiyay maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab gaar ahaan guutada kumaandooska gorgor ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cutubyada kaga sugan degmada Awdheegle ayaa sameeyay howlgalka ka dhacay deegaanada Mubarak iyo Dar es Salaam. saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa waxay warbaahinta ciidamada u xaqiijiyeen in howlgalkan uu ahaa mid qorsheysan isla markaana ciidanka ka sameeyeen deegaanada Mubarak, Wariirilow, Dar es Salaam halkaas oo isku urursanayeen maleeshiyaadka al-shabaab. muddooyinkii dambe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhan al-shabaab waxay ka wadeen gobolada bartamaha iyo koonfur dalkeena Soomaaliya. haatan aynu eegno dhanka iyo wararka dibadda. dowladda Uganda ayaa sheegtay in ciidamo horlaayo ka tirsan kuwa kaydka ay u soo dirayso gudaha dalkeena Soomaaliya si ay uga qayb noqdaan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo lagula dagaalamayo argagixisada al-shabaab. ciidamadan oo gaaraya ilaa 2752 askari ayaa haatan ku sugan xarunta tababarada taageerada nabadda ee Singo si loogu tababaro halkaasi. Uganda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamadaasi ay Soomaaliya soo gaarayaan inta u dhaxaysa bisha Oktoobar ee sanadkan ilaa bartamaha sanadka kale ee 2022. sidoo kale waxaa intaasi ku dartay dowladda Uganda in ciidamadu ay soo dirayso ay bedeli doonaan kuwa kale oo ku sugan dalkeena Soomaaliya oo dhameystay joogitaankooda. waddanka Uganda ayaa ah dalka ugu badan ee ay ka socdaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee haatan ka howlgallada ka wada gudaha dalkeena Soomaaliya, waxayna garab siiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo haatan dagaal adag kula jira kooxda argagixisada al-shabaab. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya warkaad kala socoteen channelka Dana Media. fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, like iyo share la wadaag asxaabtaada. nabadey.